Assalaamu calaykum. Sideen ku ogaadaa shakhsiyadda dhabta ah? Weylaan saaxiibanahay waxaan weydiiyey, saaxiib sideed ku ogaatay hiblaayo inay tahay qofka kuugu habboon? Wuxuu igu dhahay, aniga keliya ayay jeceshahay, qof kale ma shukaansato. Xitaa mar ayaan qof kale inta iska dhigay ayaan Facebook akoonti samaystay si aan u tijaabiyo jacaylkeeda markaasi. Waxay dhahday, aniga hadda wiil kale ayaan isjecelnahay, xiriir kulama samayn karo sidaa awgeed. Run ahaantii dhalinyaro badan oo rag iyo dumar isugu jira ayaa sidaa oo kale u fikiro, una maleeyo in sida qofka lagu ogaado. Laakiin waxaan halkan kula wadaagi doonaa habka dhabta ah ee aad ku ogaan kartid shakhsiyadda dhabta ee qofka. Marka la rabo in la ogaado dhaqmada qofka, waxaa muhiim ah in la ogaado habfikirka, sababtoo ah dhaqmada waxay ka soo fulaan fikradaha maskaxda. Number 1, wax ka weydii yaraantiisii, marxaladiisii hore ee barbaarintiisa, saaxiibadiisii iyo qaab nololeedkiisa xilligaasi, sababtoo ah qof kasta waxaa saameyn weyn ku yeeshay dhaqmadiisa, habka uu ku soo koray iyo dadka ula dhaqmay bilowga noloshiisa. Number 2, qaabku u hadlo. Sidaa darteed, qaabka qofku u hadlayo waxay muujinaysaa qaabku u fikiro iyo shakhsiyaddiisa. Haddii sheekadiisa oo dhan ay ku saabsan tahay dadka iyo hadalladooda, waxaad ka fahmaysaa inuu yahay qof dadka ku mashquulsan oo aan dantiisa raacaynin, horumarka nolosha iyo danihiisa aan ahmiyad weyn u lahayn. Sidoo kale, habka dadka ugu sugaayo hadalka waxaad ka fahmaysaa ixtiraamka uu siinayo fikradaha iyo aragtida dadka kale. Number 4, wax ka weydii aragtidiisa dhinacyo kala duwan. Hana ku mashquulin inaad fikirkaaga u sheegto, haddii kale ma ogaanaysid hab fikirka dhabta uu leeyahay, taasi oo weliba kaa caawin doonto inaad ogaatid dhaqanka dhabta uu leeyahay. Sababtoo ah habka aan u dhaqmo waxaa go'aamiyo habka aan u fikiro. Haddii fikirkaygu qaldan yahay, waxaa qaldamaya sidoo kale dhaqankayga. Su'aalo kaa caawinaya inaad ogaato shakhsiyadda dhabta ee qofka. Number 1, maxaa samaysaa haddii uu kaa fogaado saaxiibkaaga kugu dhow? Number 2, marka aad faraxsan tahay yaad waqti la qaadataa? Number 3, iskoolka sidee ayaad ku ahaan jirtay? Number 4, qofka kaa xanaajiyo sidaad ula dhaqantaha? Number 5, weligeedka qof ma ku khiyaanay? Number 6, dumarka qiime intee leeg ayay kugu leeyihiin? Number 7, wax walbo aad rabto ma jeceshahay inaad soo hesho? Waxaan hubaa haddii aad si fiican iskaga fiiriso jawaabaha uu qofka ka bixinayo su'aalaha, waxaana shaki ku jirin inaad ogaanayso shakhsiyadda dhabta ee qofka. Laakiin marnaba ha ku mashquulin inta su'aalaha aad ka weydiinayso inaad ammaanto ama aad la doodo, sababtoo ah haddii kale maskaxdaada waxaa mashquulinayo hadallada ammaanta ama dooda. Fiiro gaar ah, muhiimaha inay isku xigaan su'aalaha, laakiin asagoona qofka dareemin. Mar walba ciwaan xoogga saar, midna ogow in xilliga shukaansiga qof kasta inuu soo muujinayo dhinaciisa wanaagsan. Waxaan filayaa inay intaasi kugu filan tahay si aad ogaato qofka shakhsiyaddiisa dhabta ah. Waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. Haddii aad ka heshay muuqaalkani like saar, siina gaarsii saaxiibadaada ilaa 2 qof. Intaynu ku kulmi doono kan iyo muuqaalkiis xiga. Fii amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.